dabeecadaha ibni aadanka kala duwan oo taas saameyn doontana communicationka ya marka homework wuxuu ahaa inaan soo kala fahno dabeecadaheena iyo dabeecadaha ilmaheena marka qof oo xogaa ka soo shaqeeyay arrintaas ma jira waxyaalo ka soo sameeyay dabeecadii kala duwanaa aan dhiganay aan kala fahanay oo sagaalkii wax ahaa wax qof ka soo shaqeeyay ma jira kan hadda taxanihii oo soo bilaabnay last week ay ku xiran tahay taxanihii last week soo bilaabnay ku xiran tahay marka last week waxaan ka hadalnay horta waa kobcinta relationshipka Soomaa xiriirka oo caruurta ama qoyska waalidka sidee buu xiriirkiisa ilmaha u hagaajin karaa saa xasuusano Soomaa marka waxaan dhahnay waxyaalaha ugu muhiimsan waa inaad fahantid ilmahaada ya waa inaad fahantid ilmahaada dabeecadooda temperamentkooda aan hadda xasuusatiin temperamentka waxaan ka hadalnay how much intense qofku yahay yani ilmo waxaa jirta oo markasta wax kastaba yani si oo ziyaada u sameeyo reaction kasta ee sameynaya ziyaada u sameynaya haddii filan oo movie xanaaqa exactly hadduu xanaaqayo aad u xanaaqaya hadduu qoslaayo aad u qoslaya hadduu cayaarayo xoog u cayaaraya yani wax kastaba like very intense waaye because dabeecadooda ana saas waxaan dhahnay hadda xasuusatiin waa qof kastaba dabeecadu ilaah u abuuro waay wax oo sax ah iyo wax khalad ah toona ma jiraan marka hadda xasuusano kale waxaan dhahnay in terms of reactivity-ga in ilmana waa slow waaye aan yartooda u soconaa qun yartooda u soconayaan slowly wax kasta u sameeyaan waxay sameynayaan maxaa la yiraahdaa in yar bay u soconayaan qun yar bay u soconayaan dadna they are so fast yani pace-kooda iyo socodkooda markii any activity ay sameynayaan dhaqsi ay jecelyihiin boobsiis in u sameynayaan haddii cunto karinayaan dhaqsi u karinayaan haddii soconayaan dhaqsi u soconayaan wax kastaba waxay jecelyihiin inay si oo quickly inuu u sameeyaan dad kalena waa laid back وليد باك يعني آيرتودا سر الزين أو سي أو قنير أو دجن سعود كذا مركي سعنايان آير وسعنايان مركي محلي هذا مركي هدلايان آير وهدلايان مركي وحعنايان it takes them time هدي شاور كمسكوشو كتيران maybe ساعدي بربي كتيرايان والضبع عدو إله هو أبور والضبع عدو هذا واحد إسك بدلي كرملها لكن أنا كدار ابن حرير في عن إنا المهنة نصمينه إنا كلا برنو والضبع عداس إنا كلا برنو هدا أرجنا إن شاء الله هدا نسش سلايد كان صوص صعدة وحن لهنا temperament كهل كان كم قطع temperament كوحن كشجني temperament كوحواية أو المه كل الشان وحياله وأبورس تو إله كو أبوره يا سيدا مهما هذا سومالي محد لهنا أبورس إيو محد هذا بعدي أبورس يا كهري وأنا أبور باكور رئيس ها بربي وأنا أبور باكور رئيس سماها مركا أبورتي واي وحن كهذلين هذا أبورست المهذا مركا فهنتد المهذا سدو إله أو أبور مركا فهنه تاس وحي نجا عاونيسا سدا حريرك ولا سمين لهن ساد ضبع عضود وفهمي لهن ساد reactions كمركي إماتو هدي problem إماتو أم أني وح إماتو سدا وح ولا حلين لهن نجا عاونيسا temperament بالوده إنجليش كا مركا عرور وحن لهن واكنا وحن لهن عرورها قاركود وحن لقي يابا عرورها قاركود waxaa laga yaabaa very easy flexible waaye very flexible waa hadaa routine u sheegtid hadaa saan inaa yeelno waaye oo maxaa la routine structure hadaa siisid they are very regular so ma xasuusteen regular iyo irregular kan ka hadlayna last week ya qofna wuxuu jecel yahay nidaam wax kastaba nidaam everything on time waqtigaas ina waxaan sameeyo waqtigaas kale ina waxaan sameeyo waqtigaas ina saas yeelo hameenkii markii imaato on a time in seexdaan jecel yihiin yaa wax kastaba wixii jecel yihiin qaabkii u barteen inay ku socdaan ya dad kalena waa flexible hadaa maanta for example qofka regularka maxaa lagu gartaa hadduu intuu dhoofo oo meel kala guri kala seexdo ama hotel ama barkin kala seexdo ama sariir kala seexdo waxaa laga yaabaa qofkaas inuu dhaqso u seexanin because waa regular qof waxa wuxuu u bartay si oo wuxuu u bartay oo special ah marka sidaas specialka buu ku socon karaa wixiisu ku sameeysan karaa laakiin qofkii flexible ah yani it doesn't matter waqtiga dib kuma hayo anytime buu seexanayaa anytime buu soo kacayaa anytime buu wuxuu rabo sameysanayaa hadduu daaha is not big problem yani haddii wax yar laakiin waxa waa inaa fahano especially waalidka markuu asaga regular yahay
oo jeceliya wax kastaba on time inuu ku sameeyo ilmihiina irregular ay yihiin irregular waxaan ka wadaa yani ilmo oo yani waalidkii nidaamku jecelyaha laga yaabaa laakiin ilmihiina nidaamka ma jecla waana dabeecadu ilaahay ku abuuray marka taas waxay keeni kartaa clash ay keeni kartaa oo yani waalidkii ilmihii especially clashkaas aad wuxuu u muuqdaa aad iyo aad u muuqanaya ilmahaas markii ilmo oo soo qaangaaray ama teenager time markii soo galaan oo independence ee imaato waqti ay ayaka kaligood rabaan wax kasta inay samaystaan inay waxooda samaystaan inay haddii shaqo part time ka shaqeynaa inay shaqadooda aadaan tacliintooda waxooda samaystaan marka waalidkii nidaamkii lahaa oo subaxdii wuxuu rabaa on time inuu ku kaco oo kan on time inuu ku sameeyo qofkan kalena ilmahana waxaa laga yaabaa ama qofka young personkan inuu regular ahayn late inuu kacaya laga yaabaa inuu wax kastaba homework maybe last minute uu samaysanaya marka waxa imaanaysa clashes badan baa imaanaysa oo aad clasheskaasna waxay u muuqanaysaa ilmahaas markii soo weynaadaan oo teenager time soo gaaraan waxaana jirto kale saan sheegnay ilmana slow waaye ilmana waxa waaye fast even xitaa social skillska markii imaato dadka waa ilaahay laba abuurista ilaahay waxaa ka mid ah dadka when it comes to the bulshada hadda maanta ani hadda aroos imaado waxa laga yaabaa yani qofka yani dabeecadaha qofka hadduu qofka aroos intuu imaado waxa laga yaabaa qof inuu la qabsan karo dadkoo dhan la sheekaysan karo qofkuu yaqaano qofkuu aqoon kulli la sheekaysan karo qofna waxa arkaysa meel kaligiis intuu fariisto gaar la fariisto oo dadkuu yaqaano kaliya oo la hadlaayo oo la sheekaysanayo kaliya qofna dadkuu aqoonin xitaa uu la sheekaysanaya taasna abuurista ilaahay ka mid tahay wax khalad ah iyo wax sax ahna ma jirto labadaba waa abuuris ilaahay dadna bulshada way ku fiican yihiin dadna kuma fiicna it takes them time yani ma inay ku fiicneen laakiin waqti yani hadalka isla markii ma kula bilaabo ani kuma aqaani sheeko badan ma kula bilaabayo because waxay ka mid tahay dabeecadahayga laakiin waxa laga yaabaa marka 2 maalmood 3 maalmood 4 maalmood dhowr marka adi isla qabsano oo yani oo arko ina maxaa la yiraahdaa qof la qabsan kara ina ta and then maxaa la yiraahdaa qofkii dhex galo again waxa ka garan kartaa ilmaha markii yihiin slow or fast markii yihiin hadda intii for example activity hadda uga tagtid markii ilmo yar yihiin marka activity play activity hadii la geeyo waxa arkaysaa ciyaalna isla markiiba ciyaartii dhex galaya oo toyskii qabsanaya oo ilmihii kala la sheekaysanaya ilmana maanta dhan adii cambuurka ku haystaan adii agtaada joogaan yani it takes them time maybe 2 jeer 3 jeer markii soo noqnoqdaan ka bacdi la qabsan doonaan meesha yani isfurfurin doonaan la qabsan karaan ciyaaraha iyo waxaasi marka taasna waa abuuris ilaahay shaqo kuma la wax kale abuurista ilaahay ka mid tahay okay marka temperamentka aan sii fahanay waxaan sameyn karnaa insha Allah temperamentka hadda rabtiin marka la usii noqon karnaa waxa ka mid ah hadda for example kan la siiyay waxa laga yaabaa qofka intense-ka waxa laga wadaa ilmaha oo reaction-kooda badan hadda toyga hadda cunugan yariiska ah toygaas hadii laga qaado waxa laga yaabaa qofkii oo very intense ahayn ilmihii oo yani reaction-kooda khafiif yahay marka ciyaartu oo jeclaa ka qaadid xogaa yuru oynaya ka bacdi iska aamusaya laakiin ilmaha oo very intense ka marka toyga ka qaadid ya ilmahaas waxa laga yaabaa saacado dhan inay oynayaan especially hadii jiraan 2 sano ilmaha markii 2 sano tantrum kaas by the way xitaa teenagers ku leeyihiin tantrums ka maxaa waaye waa xanaaq badan oo frustration badan ku jiro especially markii ilmaha 2 sano ilaa 4 sano badana waa waqtiga ugu badan ee tantrums kooda ee aad u badan tahay waaye waxayna ka mid tahay yani child development-ka ama caruurta kornimitaanka caruurtii ka mid tahay wax oo dhib ah ma laha laakiin waxa fiican waalidka inuu fahmo oo control karo and then hadda si fiirna kan kale marka yani waxyaalaha oo xiriirka naga caawinayo waxaan dhahnay number 1 ina fahano ilmaha dabeecadooda ilaahay abuuristi uu abuuray ina fahano dabeecadooda noocyada dabeecadahooda tan labaad oo naga caawin karta xiriirkaas inaan dhisno waa trust building waliba waxa lagu leeyahay sida code-kan hadda sheegayo communication and trust are the 2 main ingredients for a successful relationship waxa lagu leeyahay xiriirka ya ama qofka isweedaarsiga hadalka isla hadlaysiin isla sheekaysanaysiin oo communication kaas naga dhaxeeya
iyo kalsoonida la isku qabo taas wixii keentaa xiriir adag oo fiican oo aad iyo aad u fiican oo waalidkii ilmihii xiriirkaas inuu fiican yahay waxyaalaha ugu muhiimsanna ilmaha hadduu mar xiriirkooda oo close ku yihiin ay ku fahansan yihiin adigana aaminsan tahay oo ayakana ku aaminsan yihiin that means it doesn't matter ilmahaas ama ha yaraado ama ha weynaado ama ha dhow teenager ha noqdo markasta ilmahaas yani isfahan baa jiraya isfahan badan baa jiraya okay marka trustigaas see u dhisi karnaa ilmahana inay nagu kalsoonaadaan iyo ina anaka ku kalsoonaano ayaka sidee taas u dhisi karnaa waaye waxaa loo dhisi karaa horta inaan fahno ilmo kastaba horta yaraanta laga bilaabaa sheekada markay yar yihiin markay ilmaha yar yihiin ay ka bilaabmanaysaa because waxaa lagu leeyahay yani subxaanallah ilmaha ammaanka ay kaa dareemayaan aad iyo aad saameyn weyn waxay u leedahay self esteemka caruurta ama confidencekooda ya ammaanka ay adiga kaa dareemaan baa saameyn weyn ku leh aad ay saameyn weyn ugu leedahay waxyaalaha kale waxaa ka mid ah marka see saameyn weyn ugu leedahay haddaan fiirino attachment baa la dhahaa attachmentka maxaa laga wadaa yani waa kalsoonida ka dhaxeysa ilmaha iyo waalidka kalsoonidaas wayna si kala duwan u imaanaysaa ee ilmaha korayaan markasta ee ilmaha from zero min maalinta ugu horeysa ee dhashtaan yaa kalsooniday kaaga baahan yihiin iyo ammaankii kaaga baahan yihiin way ka duwan tahay ammaankii kaaga baahan yihiin markii gaaraan 5 sane markii gaaraan 10 sane markii gaaraan 11 sane ama 15 sane markii teenager noqdaan laakiin asaaskaas wuxuu dhismadaa oo aad iyo aad u dhismadaa markii ilmahaas from the first day ammaankaas ay kaa dareemayaan oo trustigaas ammaankaas ay kaa dareemayaanna waxaa la dhahay oo tarbiyada waxaa la dhahaa attachment xiriirka oo waa kana buuga halkan waxaa la dhahaa positive parenting haddaa aragtiin workbook marka waxaa la dhahaa waa xiriirka waalidka iyo ilmaha ee isla attachmentka ah okay attachmentka oo ilmaha trustigooda kugu bilgareynaysa ama kalsooni siinaysa inaa maxaa la yiraahdaa ee ammaan dareemaan waa maalinta ugu horreysay dhashtaan maxay u baahan yihiin maalinta ugu horreysay ilmaha dhashtaan maxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin inay wax kasta ee ayaka needskooda ah haddii tahay caano la siinaayo haddii tahay bambarka laga bedelayo haddii tahay anything oo dharka loo bedelayo loo qubeynayo wax kasta ee ilmahaas u baahan yihiin oo baahi kasta u baahan yihiin hadduu waalidka si fiican ilmahaas u siiyo waxay u baahan yihiin ya oo ooyintooda iyo maxaa la yiraahdaa xaalkooda la socdo taas wixii abuurtaa secure attachment wax la dhaho secure attachmentkaas waxa waaye waa xiriir oo ammaan leh wuxuu dareemayaa inuu kugu kalsoonaan karo ya inuu wax isku ka hadlayn karo dareemayaa ilmahaas waana muhiim waay taas waxayna ka bilaabataa min maalinta ugu horeysa ee dhashaan marka waxyaalaha waxaan ka mid ah waxaan dhahnay special any needskooda waxyaalahay u baahan yihiin ama cunto ahaato ama bambarka laga bedelayo ha ahaato waxaasoo dhan waalidka inuu u provide garayn karo haddana waa kana haddaa aragna si fiican waxa waaye waa jaranjaro يعني waxaa lagu leeyahay trustigaas jaranjaro camal waaye okay jaranjarada oo of course waxay ka bilaabataa jaranjarada kormi ka bilaabataa mase hoos ka bilaabataa soo markaa rabtid inaa kor u sii kortid jaranjarada markaa rabtid inaa yani foundationka asaaska markaa ka bixaysid asaaska marka waxaa lagu leeyahay waxa waaye waxaa kamid ah inaa ilmihii markii ooyaan waxay u baahan yihiin inaa siin kartid cuntaday u baahan yihiin hurdadii u baahan yihiin xitaa waxaa lagu leeyahay ilmahaas waa aad iyo aad ee muhiim u tahay inaad jecel dareensiisid ya waxaa marmar dhahnaa okay cunuga haddaa bambarka ka bedelo haddaa maxaa la yiraahdaa caanihiisa siiyo meel ku xir meel ha fariisto babyga kursigiisa jir baby kursiga lagu talagalay ama sariirtiisa ku rid ha isboil gareenin erabdaraha barin ilmaha haddii kalmaanto dhan waxay noqonaysaa inaa saas u haysid in fact hadda
يعني علمي التربية iyo علم النفسية wuxuu sheegay يعني psychology ama child development psychology waxaa la sheegay inay aad iyo aad muhiim u tahay ilmaha markii ooyaan in la qabto ilmaha oo u barta markasta ooyaan in loo imaanin in la qabanin taasi saameyn weyn waxay ku leedahay self esteem kooda yani confidence ka ama kalsoonida ay waalidka ku qabaan bi aad u saameynaysa oo aad yani u saameynaysa ilmaha oo badana markay yar yihiin oo la koolkoolin oo la qabanin oo markasta yani la tusin in la joogo oo just intii bambarka iyo maxaa la yiraahdaa caanahooda kaliya la sii meel iska dhigo ilmahaas waxaa la dhahay emotional neglected ay noqon karaan ya anaka waxaa isleenahay caruurta edab daray baranin oo markasta inaa gacanta ha barin rabbiga ereygaas la dhahaa barsaara soo ma aha gacanta ha barin baa lagu leeyahay gacanta ha barin yes gacanta ha barin hadhow wax ma ka qabsan kartid waa kaasa and that is so wrong waana culture keena by the way Soomaalida kelima waa dadkoona adduunka meel kasta aadad xitaa waa lagu leeyahay waxa lagu leeyahay yani gacanta ha barin dhaaf Soomaa wixiisa dhan u sameeynin dharkiisa nadiif Soomaa ka Soomaa dhaaf weligiis baha ooyo maanta hal ilaa bariha ooyo hadhow baranaya inuu aamuso asay keligiis aakhirkiis aamusinaya waana musiibada ugu weyn oo tarbiyada ugu weyn waa taas waa because ilmahaas maanta dhan suu u ooynayo oo daciifka ibn aadankaas daciifka ah suu u ooynayo isleeyahay bal qofa ku imaad ila communication kala ma haysto hadal ma kula hadli karo words ma yaqaano sida wax u dalbado ma yaqaan ooyintaas waa communication kiisa dhan waa ooyintaas kaliya haye ooyintii dhameed oo kula communicate gareynaa language kiisi waa hadal waa luqadiisa ooyintii waa luqadiisii marka luqadii oo kugula hadlayay haddaad fahmaynin a ignore gareynaysid ilmahaas u ooyna aakhirka asaga is aamusinaya and guess what markuu soo weynaadana waxyaalo u imaan doonaa markasta oo dhib ku dhaco asaga unba isku celinaya guduhu gashanaya cuqdad bay ku noqonaysaa marka that's why waxa lagu leeyahay is very important ilmaha haddii ooyaan inay isa markiiba oo la dareensiiyo in la joogo waa secure attachment baa la dhahaa yani inaad dareensiisid ilmahaas inaad la joogtid waalidka dee waxaa nahnay the most important care provider ya qofkii dhammaa oo xanaaneyntii iyo ricaayadii iyo yani oo iyo tarbiyada xitaa askara tarbiyada tacliinta ku jirta laakiin xanaaneyntii ya qofkii dhammaa oo xanaaneyntii ahaa oo laga sugaayay hadduu ignore gareynayo ilmahaas hadhow ilmahaas self confidence kooda iyo self esteem kooda aad bay u saameynaysaa marka aniga ooyinta kama wada yani for example adoo showerka ku jira haddaa maqashid asagoo halma intuu dhaho ooyina isa markiiba kasoo bood adoo timahaadi shaambaleeda oo soo carar marku dhahayo laakiin ha ka dhigin wax habit ah ha ka dhigin wax oo joogto ah inaa ilmahaada markaste ooyintooda dhageysatid aad dhahdid gacanta ma raba inaan baro inay maxaa la yiraahdaa ay bartaan inaa markaste ha ooyaan ayaka iska aamus doona waa run way iska aamusi doonaan laakiin ilmahaas qalbigoodii baa jaban because the only way luqadii dareemi lahaayeen inay ammaankii u baahnaayeen maad siinaysid marka haddaan fiirino needska hadda waxyaale u baahan yihiin waa inay physically la dhaho yani haddaa jaranjarada haddaa usoo noqono jaranjarada waxaan dhahnay waxyaalaha ugu muhiimsan waa inay cuntadii iyo hurdadii iyo nadaafadii ahamiyadda ama baahida labaad ee ilmaha u baahan yihiin waa safety inay ammaan dareemaan marka ilmaha yar ilmo kastaba ammaan nooc buu u dareemaa yani according to the stage of life ee marayaan ama according to the child development age kay marayaan yani ilmahaas korimitaankooda meeshuu maraayo ku xiran tahay ammaanka iyo sidaa u bari lahayd inaa ammaan yani iyo safety inay dareemaan baahida saddexaad ee ilmaha u baahan yihiin waxaa ka mid ah social needs waxay u baahan yihiin inay dareemaan in la jecel yahay waxay u baahan yihiin inay dareemaan inay waalidkood jecel yahay okay sidee u dareensiinayaa simple hugs and kisses ya yani waxaa wallahi subhanallah يعني أنا especially والد there's a problem with the يعني هدا تربية فيرنا أوكي والد كستب الميس وتشعلي هاي
meel ku dhahaysa waalid ilmihiisa ma jecla ma jirto unless you are psychopathic or like you know there's mental issues inay jiraan laakiin waa fitra min allah waa fitrad oo ilaahay ku abuuray fitrad oo khalqiga ilaahay oo dhan ama xayawaan ha ahaado ama ibni aadan ha ahaado waalid kastaba ilmihiisa wuu jecel yahay laakiin su-aasha waxa waaye ilmahaada ma tustaa inaad jeceshahay ya ilmahaada waxa qalbigaada ku jira ma soo bixin kartaa ma tarjumi kartaa ma ka hadli kartaa ma dareensiin kartaa ayaka inaad jeceshahay intaasoo research ah laga sameeyey waxyaalo badan marar badan oo ku saabsan ilmo survey iyo waxyaalahaas la weydiiyey and subxaanallah it depends ilmo badan baa waxay dhaheen aabaheen iyo hooyadeen wax kasta way noo provide gareeyaan iskuullada u baahanna wayna geliyaan waxyaalaha u baahannahay kabaha dharka telefoonada everything laakiin hal wax baan ka helin hal wax ma ka helno jeceelka ma ka dareenno jeceel inayna jecel yihiin ma dareenno marka see ilmo kastaba and that depends again stage kastaba laakiin stage kastaba ilmaha joogaan ya waxay u baahan yihiin hag ina la siiyo hag yani hab ina la siiyo waxay u baahan yihiin ina la shumiyo yes shumis bay u baahan yihiin kisses u baahan yihiin hugsay u baahan yihiin taabasho la taabanayo jirkooda la soo dhaweynayo oo xudnigooda saas loo saarayo u baahan yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qudwadeena yani subxaan allah intee xadiid ah waxaa arkaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii imaato asagoo hadda waa gabar weyn yaa waa faatimatu zahra ayadoo gabar weyn ah oo dad ku dhex jirta markii qoyskiisa uu imaado ama familigiisa markuu u soo galo ayadoo gabar weyn ah oo yani dad kale xitaa ku dhex jirta maybe saaxiibadeed iyo dadkaasi ku dhex jirto intuu u imaado buu halkaas ka shumiyaa ya labada indhood dhexdooda buu saas uga shumin jiray markaas wuxuu dhihi jiray haadihi ummu abiiha gabadhan waa aabaheed hooyadiis يعني how much she cared about him يعني she used to really look after him يعني وقاد بي وحنانين جرتي ألابتيسا وحيسا دردركيسا يعني we look after جرين جرتي سيدا قبلها بدنا آباياشا يالان يا we look after جرين جرتي آباهد مركز وحو كفاني جري قبلان وقبل آباهد هويدان قبل آباهد هويد النبي عليه الصلاة والسلام مركو حسن وحسين مركز وساس بوها جرين جري صلاة حتى مركو كتشرو sujuud markuu ku jiro xitaa wuu sugi jiro haddii dhabarkiisa ku cayaarayaan haddii maxaa la yiraahdaa markuu sujuudda sameynaya dhabarkiisa ku cayaarayaan sujuudu dheerayn jiray sida cayaartood u dhameystaan nin acraabiya u imaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas badanaa waa naqaanay sheekadaas nin acraabiya u imaaday markaas wuxuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilmihiisa oo shuminaya iyo ilmuhu awoow u yahay shuminaya and then markaas wuxuu dhahay oo nabiyow oo aday ma ciyaalka yaryaraa shumisaa ciyaalka yaryar maa shumisaana markaas wuxuu dhahay oo adiga ilmahaada ma shumisid miyaa mayuu dhahay 9 ilmood mase 8 caruur baa leeyahay weliga midna ma shuminin wuxuu dhahay maxaan kuugu samayn karaa hadduu ilaahay raxmadda qalbigaada ka qaaday ya ma afcalu bika idaa nazaca allahu raxmata min qalbik يعني maxaa aniga ka sameyn karaa hadduu ilaahay raxmadda ka qaaday marka jaceelkaas waxaan ku dareensiin karnaa ilmaheena inaa hag siino inaa shumino waxa lagu leeyahay psychologically يعني culimada tarbiyada iyo tarbiyada caruurta iyo waxaasi waxay ku leeyihiin minimum ilmaha daarta self esteem kooda iyo self confidence kooda inaa dhistid ya ugu yaraan 24 jeer waa inaa shumisid I love you ku dhahdid maalintii 24 jeer waa inaa hag siisid aad shumisid aad taabatid aad dhahdid hooyo waa ku jeclahay aabba waa ku jeclahay walaa waxaa xasuustaa one brother oo dhahaye weligay aabbahay yani waa wiil dhalinyaro markuu wuxuu dhahay weligay aabbahay gacan aan leena ani asaga weligay ma istaabaninba markaas waxaa dhahay what was the closest time aabbaha usoo dhawaatay xitaa marna hag isma siinin maya markaa 16 sano jiray buu hal mar gacanta ila sheegareeya ya markaa 16 sano gaaray ya ba alla waxaa xasuustaa mar intuu soo noqday aan islaamnay gacanta saas kaliya isku salaamnay ya marka you can imagine ninkaas markuu yani weynaado oo adult noqdo wuuna weynaaday adult markuu noqdo yani emotional attachment ka oo haysan karo
waa deserted emotional يعني سبحان الله waxaa jirta waalid oo ku dhaa aniga ma jecel ilmaha in waa ka xasaasiyoonaya haddaa hag siiyo ma jecel aniga ma jecel in la taabto ma jecel in hag siiyo ma jecel in maxaa la dhahaa shushumiyo maxaa dhacay by the way ilmaha kuwa yar iyo kuwa weynba labadaba u baahan yihiin midkii xitaa ka dheer xitaa ilmaha qaarkood markii weynaadaan oo 20 sano iyo 25 sano whatever ay gaaraan ilmo waa ilmahaadii hooyo iyo aabba lagama weynaado marna way u baahan yihiin mar kasta u baahan yihiin يعني مرمر waxay ku dhaay oo hooyo ama oo aabbo maxaa ii shuminaysa maxaa haga ii siinaysa no they need it especially waxa lagu leeyahay markii ilmaha oo teenager noqdaan markaasba baahidooda u sii badin because self confidence kooda khalkhal weyn ku jira khalkhal weyn waxa ku jira safety gooda iyo self confidence kooda khalkhal badan ku jira marka u baahan yihiin marka baahiyada haddaan u soo kaxeeno ama u soo qaadno baahiyada oo trustiga ilmaha u baahan yihiin sida u dhisaan waa ina physical waxyaalahay u baahan yihiin ina siisid especially markii ilmaha yar yihiin ilmaha markii yar waalidiinta ilmaha yar oo from yani maalinta ugu horeysa ilaa iyo 2 sano ilmahaas waxa lagu leeyahay research badan baa laga sheegay xamdi mar waa ka wada hadalnay marka lockdown ku lagu jiray hadda xasuusatid April mase May time mar waa ta research-ka ka hadleynay waxa la soo barbar dhigay ilmo maskaxda yani iskaana ilmo laga qaaday ilmo yara iskaan laga qaaday ilmo oo 2 sano jiray marka wuxuu ku jiray care home foster family ama care home uu joogay iyo ilmo oo waalidkiis markasta good contact yani gurigi waalidkiis nool iyo ilmo oo care home ku jira waxa la sawiray iskaana la soo sameeyay labadaba waxa laga qaaday maskaxda iskaan laga qaaday waxa la arkay ilmihii oo waalidkood oo markasta xanaaneynayay oo care providerkiisi jaceelka u muujinayay maskaxdooda inay ka balaaran tahay ilmaha ama meelo badan inuu nolol badan ka baxayaan ilmaha oo laakiin care home ku jiray oo waalidkood intee ka carareen ama ka foster family qaateen oo care home ku jiray waxa la arkay ilmahaas meelo badan in mugdi ka tahay maskaxdoodan size ahaan uu u yareed meelo badan oo mugdina badan way ku jirtay meelo badan oo mugdi ahna way ku jirtay taas maxay ku tusaysaa ilmaha jaceelka oo u provide gareeno maskaxdooda brain development kooda buu saamo ku leeyahay and that's very crucial so secure attachment is a very important thing ina ilmaha oo si fiican ina u xal that's why waxa la skin to skin markii la dhaho hooyada markii dhasho oo la dhahayo oo ilmaha skin to skin u qabo skin to skin waxa laga wadaa ilmaha had dareemo inuu amaan ku jiro sidoo calooshiisa minka hooyada sidoo markuu ugu dhex jiray ya oo amaan u dareemayay waxa la rabaa markuu soo baxana inuu isla amaankii dareemo baa la rabaa okay ilmaha toddlerska markii waxa la dhaaf from adiga 2 years ilaa iyo 4 years ka ilmahaas markaas amal waxa waa ilmo oo ayaka kaliya u cad everything adduunkan dhan ayaka leh wax kastaba it's mine buu ku leeyahay and that's very good because waxa waa waqti oo aad iyo aad wixii kobcinayaan dareenka inay ibn aadan yihiin baranayaan ya inay ibn aadan yihiin bi markaas baranayaan oo inay ka duwan yihiin maxaa la yiraahdaa oo yani qof ibn aadan oo kaligiis oo entity u leh bi baranayaan inuu yahay marka wax kastaba maadaama uu ku cusub yahay inay kaligood waxoodii sameystaan wax kastaba waxay ku leeyihiin anaa leh marka the way aad trustiga u build gareyn kartid aad kalsoonida u dareensiin kartid waxa waay markasta inaa maxaa la yiraahdaa inaad dareensiisid inaa ogoshahay oo markii waxay cayaarayaan markii waxyaalo sameynayaan inaad dhahdid kaale isla cayaarno kaale waxa isla sameeyno because markasta murankood xitaa uu badan yahay marmarka markay yar yihiin ina markasta aad dagaal kula jirin iyo waxooda ina ka qaado waxa laga yaabaa inay toy qof kale oo leeyahay arkeen way qaadanayaan wax kastaba way qaadanayaan because waxay ku leeyihiin waxaan ana kaale laakiin waxa waa si ayar oo patient ahaan ina u barno wax kastaba tan kale waxa waaye oo ku saabsan markii ilmaha noqdaan middle childhood markii ilmaha noqdaan middle childhood waxa waaye yani markii soo gaaraan adiga from 5 years to 7 years meelahaas iyo
5 years to 7 years meelahaasi markii soo gaaraan ama 5 to 6 years markii soo gaaraan wixii aad ula qabsan karaan wada shaqaynta aad ula qabsan karaan qofka kale way tixgelinayaan marka wax u sheegtid way ku tixgelinayaan laakiin hal qof kaliya wax u sheegi kara ama adiga wax u sheegi kara ama macalinka wax u sheegi kara labadaba muku dhahayaan oo yani haddii waalidkii waxaa laga yaabaa hadduu markuu guriga joogana hooyadii waxay dhahaysaa qalinka sana wax loogu qoraa and then iskuulkii uu aadayaa macalimadii si kale qalinka u qaba ee leedahay markuu guriga usoo noqdo markaas waxay ku leedahay maya ani macalimadeeda si i dhahday I listen to my teacher ku leedahay ama uu ku leeyahay cunuga yani wuxuu diidayaa laba qof hadalkooda laba amar ma qaadi karo laba qof amarkooda ma qaadi karo waa hal qof kaliya uu ogol yahay qofka ogol yahana u fiirsayaa qofka ogol yahay u fiirsa because taas aad inoogu dhacda waan arkay waalidiin badan wax ka sheegaan qofka ogol yahay waa qofka oo u qirta inuu qiimeeyo qofkii ibni aadanka adalka ee ka dareemaan inuu respectful u yahay qofkaasi hadalkiisa dhagaysanayaan ibni aadanka ee ka dareemaan waxyaalahan hadda soo socda kana ani laga sheegayaa kan ibni aadanka ee ka dareemaan inuu qof oo tixgelinaya oo ra'yigooda iyo amarkoodaba iyo yani hadalkooda dhagaysanaya ya ilmahaas camal aad buu u tixgelinayaan markii dareemaan in la dhagaysanayo waalidkii ama adaltkii dhagaysanaya ilmahaas markii yani 5 to 6 jiraan adaltkaasi dhagaysanayaan because asagaa dhagaysanaya waqtuu siiyey ammaan buu siiyey jaceyl buu tusay ixtiraam buu tusay taas waxay keenaysaa inay ku kalsoonaadaan ee jeclaadaan qofkaas wuxuu dhahayo that's why maalidiin badan waxaa arkaysa ilmahayga wuxuu dhagaystaa macalimada warkeeda wuu dhagaystaa anigana warkayga ima dhagaysto markuu iskuulka joogo macalimada wax kasta oo dhaho ama wax kasta ee macalimada ay dhahdo wuu yeelayaa laakiin markuu guriga joogno ma yeelayo li'annu macalimada waxay tustay afartaas wax way dhagaysatay markuu hadlayay way ixtiraamtay markuu ra'yigiisa dhiibanayay waxay tustay inuu yani ibni aadan yahay oo ra'yigiisa kala hadashay oo levelkiisa ee la imaatay oo eye contact ee la samaysay and that created taasna waxay keentay xiriir wanaagsan labadooda inuu ka dhaxeeyo xiriirka oo trustiga ahaa baa ka dhaxeeya labadooda laakiin hooyadii markii guriga joogta ama aabihii markuu guriga joogo waxaa laga yaabaa ilmahaas in la qiimeeninba hadalkiisa markuu wax sheego especially ilmaha waaweyn markii wax sheega hooyo saasa waxaa looma sameeyo saasaa loo sameeya waalidka meeshuu dhihi lahaa maasha allah hooyo waa ku mahadsantaa inaad sax iisha waryaa ma anaa isaxaysaa waa ciyaalkii aabihiis dhalmada baray maa la dhaha something like that maxaa la dhahaa brisahro mahmaahdaas waalidkii والد علمه والد كلمة برا exactly waa proud يعني علم هذا إني كصحة أنا تفكر culture كنا negative it's true يعني it's not good حمانا جماعها سومالي وحكي علم الملك صح لكن the way I treat كرينا علمها the way I وحكرني إستين البسوكري كل واحد negative هذا أديات negative سو دوين تكلقى كبر كبدس ما تنا معسينيسا المها أقول نقولش هاي والحياة هذا لسكو مقبيس يا أبو أديات حريص أنا أنا أحاول الرباب إنه حريص بكتكتين صح أديات ووالد في عرورتي سو كل ريال وكل ها نعم والد كلا جعلي waxaa laga garanayaa especially ilmaha teenager markii soo noqdaan waalidkaas markuu guriga imaado ma la farxaya mise waa la kala cararaya hadii la farxayo that means waalidkaas waalid waxa waaye good connection la leeyahay hadii laakiin qof kasta wuxuu sameynayo kala cararayo kala ordaayo waalidkaas waa authoritarian mara ka hadli doona inshallah style oo parenting ka mid tahay laakiin waxa u soo noqonaynaa waalidiin badan waxa jirta haduu ilmahaada ku saxo ha u qaadan personal just don't take it personally haduu ilmahaada ku saxaan hadaa khaldan tahay for example eraya khalad u sheegay marka uu isaxay waa mahadsantahay barakallahu fiik jazakallahu khayran wariya sama aha kama aha wariya ma ana isaxaysa ma ana ii sheegaysa ma ana ka bahal keenaysa no khalad waa taas yani
waxaa qiimihiisii oo self esteemkiisii aad dhulka sii gelinaysaa because ibni aadankan wuxuu rabay inaad respect garaysid inaad ixtiraamtid inaad maxaa la tustid inaad qiimeynaysid inuu ku saxay laakiin we shutting this down yani communicationkaasaa shad garaynaynaa bas ilmihii qaar waxaa laga yaabaa marka dambe inay gaaraan waxyaalo badan waalidkii khaladaad u sameyn uu ka aamusaa because wuxuu ku leeyahay I don't want to get into trouble I'm not gonna tell my mom anything because I don't want to get into trouble and taas waxay keenaysaa ilmihii inuu wax kasta muku la wadaagi karo ya especially markii teenager noqdaan maasha allah xamdi waa ku salaamay waxa waaye waxaad dareemaysaa waalidka lama qaybsan karo ilmahaas waalidka waxbana lama qaybsan karo especially ilmahaas markii teenager ama weynaadaan and the reason why ay kula qaybsan karin because waxa waaye waa the second one haddaan ka hadalno being judgment xukun baa la soo boodaysaa hooy wuxuu ku leeyahay saanaysaan oh maya adiga waxa saasaa tahay yani label baa u samaynaysaa ya hadalka meesha ka guri lahayd aa gadaal u fariisan lahayd maxaa la fahmi lahayd xitaa waxa laga yaabaa wax oo baqdin ah markuu kaala sheekaysanayo ya laakiin still caloosh inay ku xanuunaysa laakiin waxa waa inaa qosolkii aad tustid ya one example cajiib ah oo waxaa sheegay nin oo tarbiyada ka hadlay wuxuu dhahay ilmahaada wax kasta ay kuu sheegayaan it doesn't matter haddaa waxa oo ka xanaaqaysida tahay waxaa necab tahay inay tahay ha u muujinin because ilmihii hadalkaa ku celinaysaa marka dambe haddii kale wixii ay rabeen inay ka hadlaan ma ka hadli karaan because adiga you're not giving them space ay ka hadlaan marka wuxuu dhahay waxa waa inaad noqotid sida ma arkino webiga oo duckska boolo maa la dhahaa shimbirta oo badda dabaalataa ya ha boolada marka shimbirtaas oo badda markii dabaalanayso kor markaa ka fiirisid waxay u egtaa wax oo yani si oo rasiin u socda oo aayar u dabaalanaysa oo si caadi u socotay u eg tahay oo si smoothly oo calm ah yani si oo degan in u dabaalanaysa u eg tahay laakiin waxaa lagu leeyahay haddaa kamerada gadaal hoos ka fiirisid aad fiirisid cagaheeda waxaa lagu leeyahay every 1 second 100 jeer bisaas dhehaysaa yani cagaheeda iyo lugaheeda shimbirtaas oo boloboodo ah oo biyaha haddaa hoos ka fiirisid saas u balbalaysa because waa inay waxay ka mid tahay inay sidii u dabaalato lugaheeda iyo gacmaheeda ama lugaheeda bixoog saas u balbalinaysaa laakiin kor markaa ka fiirisid waa bahashaas aayarteeda u soconaysaa kaamkeeda u soconaysaa marka waalidkana inuu saas noqdaa la rabaa it doesn't matter ilmahaada waxay kuu sheegayaan waxaad jeceshahay wax kalaba haddii yihiin inaad kaam ahaatid waaye haddaa rabtid markaa qolkaada geshid barkinta qaniin qaali waxa rabtid u sameey telefoon qabsa hadhow qof kala hadal laakiin markii ayaga ku hor joogaan u dhiila yani waxa waa inaad tustid inaad okay ku tahay lianno hadal kala dambe ma kuu sheega ma kula wadaagayaan waxayna ka mid tahay siyaalaha oo loo trustiga loo build gareeyo marka waxaan dhan haddaan soo koobno waxa ugu muhiimsan ilmahaas inaad dhegaysano waxay sheegayaan oo waliba eye contactna inaan la sameyno oo aan fahano oo miya maasha allah saas ma dhacday bal ii waran hooyo saas kubadda saas maanta cayaarayay halkaas geeyay saas u bahalkeeyay saas ka yeelay meesha haye maasha allah laakiin ilmaha hadana wariya bas intaas aniga waxa hool baan haystaa waxaan sameynayaa orod saaxiibka la sheekayso orod walaalka la sheekayso ani waa inaan sii socdo markaas xiriirkaas marna wallahi ma hagaagayo because the reason u hagaagaynina waxaa ka mid ah because waqti oo ilmahaas dhageysatid maad siinin waalidiinta ka mid ah wuxuu dhahay mar computerkan ku jira waalidiin badanna waa sameynaa anagoo telefonkaasaan u haysanaa ilmihii baa noo imaana telefonkia gacanta ku haysanaa sheekaa noo socota telefonkia saas ugu haysanaa bas ilmihiyaa kuu imaana waxay kuu sheegayaan saa madaxa ruuxaysaa laakiin waa muhiim waaye habar zahre iyo macalin muxidiin waa ka hadli kartiin adinkana waxaa waaye waqtigaas oo rush timeka
waqtiga ugu muhiimsan waaye waqtiga ugu muhiimsan oo ilmihii waxaas wixii markaas ka dhacay iskuulka oo weli wuu xasuustaa because ilmaha memorygoodaba aad uma dheer mogta waxyaalo kala badan bay hadhow concentrationka saara laakiin markaas waa marka ugu muhiimsan oo ilmihii wixii ku dhacay wixii macalmadooda ku samaysay wixii classka ka dhacay wixii saaxiibeed ku sameeyay waa marka oo raba inuu kugu guro oo ka yani kula hadlo iyo hameenkii marka la seexana exactly that's another time ay jeceliin inay hadlaan waxaana muhiim ah waalidka labadaas waqti wallahi waalid kasta si kasta u mashquulsan tahay ilmahaada markay iskuulka ka soo noqdaan telefoonada waa inaad ka daminaa ayaka unavailable you have to be available to them and also markii seexanayaana waa ina available markaasna ahaadna oo because ilmahaas waxaa rabnaa inay hurdo fiican iyo xiriir yani maalintii aad dhammaanaysa ma ogta maalintii oo dheereed waxyaalo badan dhacay emotional ups and downs ku dhacay aniga igu dhacay ayakii ku dhacay marka we want at least maalintaas inay si fiican inay u xirmato xitaa ilmaha waaweyn xitaa labada qof wallahi aabahay hooyada xitaa the end of the night is very important for the relationship aa lagu leeyahay xiriir kasta oo la rabo inuu xiriir wanaagsan socdo marka ugu horeysa iyo marka ugu dambeysaba maalintaas waa inay si fiican oo si wanaagsan loo kala tagaa oo mac salaamo la isku dhahaa and then waxyaalaha macallin Muxidiin waa ka hadli kartaa arrintaas bas hal wax yar waxaan ku darayaa waalidkii oo ilmihiisa telefoonka haystay ya gabadhii waxay u sheegaysay aabihii saan buu haystay telefoonka ha buu dhahay marka ilaa ilmihii gabadhii waxay gabar oo 12 sano ama 11 sano jirta ilaa su'aal bi weydiinaysay aabba waxay dhahaysay ma kalarkan baa doortaa buugaan oo kalarkan mase kalarkaas aad doortaa aabihii ha buu dhahay ilmihii labadii buugba intii saas u kala tuurtay way ka carartay way ka tagtay qolkeedii aaday aabihii wuxuu ku baraarugay gabadhii labadii buug oo tuurtay oo u soo noqotay markaas uu weydiiyay maxaa dhacay waxay dhahday anigu su'aalan ku weydiiyay ha ideh ma ku dhihin su'aalan ku weydiiyay ma kana doortaa mase kana doortaa marka taas waxayna tusaysaa ilmaheena inay dhageysiga aad muhiim u tahay inaan dhageysano especially marka iskuulka ka soo noqdaan iyo markii seexanayaan waa labada waqti ugu muhiimsan oo xitaa ilmaha waaweyn xitaa even kuwa shaqeeya xitaa markii shaqada ka soo noqdaan qofii offload baa la offloading inay qof ay kala hadlaan waxyaalaha ka dhacay maalintaas waxyaalaha dhacay inay kala hadlaan ay jecel yihiin yaa macallin Muxidiin maxaa ku daraysaa بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله مريم ما بس ما الحمد لله runtaa waa macnaha markii iskoolkii maadaan the first opportunity macnaha ilmaha aad iyo aad marka hadduu ku seego it doesn't come back at all nacam bur lagu soo sameeyey in maanta la soo amaanay wixii marka حتى waxay ogaanayaan inaa beenta ay tahay ha markaa dhacday صح qaadanaya inaa maqashay haduu inaa صح dabcigaasna meel ka barnayaan adin waqti la tagayaan aad iyo aad haduu ma ku dhageysan ayka ma ku dhageysanayaan ya ma ku dhageysanayaan macallinkina ma dhageysanayaan aad iyo aad waarun nacam sida beek macallin Zahir sheegaysay أمس خف وين أطلعه صح لا شرطين أنا لا استيبرنو ليز أتبرن إذا ناس أنا تراجع إلجأ ما أنا حنا قابس فيه آتي 145 آتي أنا خف وين أمانة صحيح 5 days كبعد الصلاة صحيح أنا مريهم جدول مريهم ها بلخ على أعلام برنا أنا أقول صحيح أنا أقول هذا السؤال هذا أنا عشان أمريكا تنطلق مع الحين ها تعبوا إنسان قيل لكم ارجعوا فارجعوا نعم إنسان aad marka hadda taas ku sii darno macallin Muxidiin hadda taas ku sii darno waxa waalidiin badan baa isweydiin kara ilmahayga especially ilmaha waaweyn ka hadlaya waxa teenager-ka ka weyn ka hadlaya oo adi 15 sano ilmaha dhaafe waxay ku leeyihiin ilmahayga sirtooda iyo waxyaalahay rabaan saaxiibahood way la wadaagi karaan anigana iguma kalsoona iglama wadaagi karaan ibn aadan kastana waa saas
حتى أنا كدحدنا اسويدينو يا مركا أنا كيرين يا ku kalsoonaan jirto sirtaada iyo hooshaada iyo sheekooyinkaada shidan iyo yaa la sheekaysan kartay waalidka mase saaxiibka waa saaxiibka soo maaha saaxiibka habar yar macaan saaxiibka waaye laakiin one thing ka jira habar yar aniga oon tijaabiyey nacam aan ku guuleystay horta ilmaha markay ii yareeraayeen saacadaha waxaan u bixiyey rush hour صح تلفنا ما قبل جرين نعم قفنا ما قابل جرين وحنا جرين رش اور اصحاب تيد way ugu barteen صح رش اور kii aan ku jiraayaan dhaha نعم mana qabta telefoon inta ka kala hagaajinaayo cuntada ka kala siinaayo miiska fariisinaayo waxa soo dhan صحيح waxayna iga ahayd markay soo galaan xataa inaan dhageysto igama ahayn inaan parenting aqaano igama ahayn waxa iga ahayd cabsi badan oo aan ka qabin iskoolka عادي اسكولك صح وارن بدنا سومالي اسكولده وارن المهي قولي ايا عبسك قبي عندها سكول كلسونيدا ها waxaan rabay inaan ogaado waxa ay la soo kulmeen waxay maanta soo sameeyeen waxay soo arkeen inta jidka ku soo wada hal u wareyso saxiibka markaa soo galiya hal u wareyso iskuulka intaan ka soo bixin macluumaad weydii ha uu maanta aha waxay ahayd ma iga ahayn building relationship building relationship iga ma ahayn waxay iga cabsi badan iyo walwal badan oo iga jiray ilmaha dadka aan u dhiibay trustiga trusty ma ku haysan صح عادي waxay iyagana way barteen inay hadlaan ilmuna waa kala karagtooyin هذا كوكو كلا في عين ilmo markaa weydiisid ku jawaaba ilmo marka wax allaalay waxay soo arkeen isla marka ku sheekay inta ilmay way soo jiraan hadda waa la waaweynaaday ما شاء الله ما شاء الله markii hadda la waaweynaaday waxaan kaloo ogaaday habar yar xataa haddii qalad la sameeyo oo qaladka ogaatid ama hadal xun نعم واحد فعلك هين أو هذا لو ماشى سكبر أنا وقعد إن مركي بقيلين ها رياكتيف إنا نقول الله وريا كنت إيه كنا دتك إلى جوجا بس أموالها هذا أموالها هذا وحده وحسب كل سمينا كما أذن هذا واحد يجري تارك وكل إيسين صح تارك إيسيجا you have to be إن هذا واحد مخلين exactly نعم عادي هذا هو البوك جوابتي صح إيمانيس إنا وحب الوقوش قيمة هذا رم بابا تجايبه مركز تدق قيلين يسد everything exactly سيدا ولا بحي ولا صوت ده you know إن ميل سو استاجا صح إيش كاس ولا صامري لكن هديرو قلنا هو أكله وحبان ملك سو قادناي اللايبراري دا صامري أو وحير كسو داهي وحاسة كوسو أنا أكلفك وجرتو أوي صح ما شاء الله تكنولوجي كان بيجي هاي تسمى وحبان سو قادنا وقتها إن ميل تاجنا وجروب لا شيء سناي صحيح ولا مجرد سناي والله صعدة supervision كان لعبر supervision والله صعدة عروض تادو حو سمينا هاي قال صوت ها 8 دقيقة قال صوت هاي نص ساعة وقت قلت بس كأي صوت تجي كي كلاس وجهي كذا كأقرصنا مرة exactly شيء جاي مرة exactly لكن تعصب كله هفنا أول صوت هاي حتى أكو قيلس حين قنيسة إنا وحبل وشي exactly هفن أول كنا 1 hour سبتر exactly ورايده أنا لقاح حرشته مركا ما يوتاس ومهم واي نعم وإن لقى قد بقى هذا كله حواي حتى هذا العادي بنجيسنا يا مالك نعم لك تلفون كنجيسو مقال وحي كليهين الجواب مركز قانا لقول إيمانا هذا رالك إيهاب صحيح يجنا دنوا هين أذيقنا هذا إلى مرة ضد أوريدي صور نجيست كلا هيا هوي وسمينه مرة أدي صاحب كومنتي هيا exactly ساعدها كسو وريجان درك على سكبحيو على سودو على صور نقضو وقتجي هدي وحكي لمين عملها هذا مركز كتير صوفر صوي أدي قارب جرت واحد شرط أنا وأقول ربع لكن يا باتاسك إيمان كرتا ثاني نقول كرتا كني نقول كرتا exactly أدي أكون شيء جاي نفيري صحيح نعم لكن decision is yours exactly waxaan adiga ka sameey adaa go'aanka iska leh laakiin aniga go'aankaagas habbu kuma ihi reasonama ugu aheena waxa waaye saas ka baqa inay ka timaado صحيح أنا قديم وفكرة وحساب سما وين إيش قيسي نعم هو واحد مهم سنبا
at that age wayna ii shaqaysay okay markaas hadhow kadib way ku imaanayaan hayahoy wixii maxaa ka tiri mahoy waa iska dhaafay waa sii fikir kasii fikir baar waxay noqon doonto sii fiiri hore go-aan ha ka gaarin shaqooyinka xataa markii la dalbanayo la waaweynaado shaqadan maxay effect kuu keenay maxay saan kuu noqonay waxaasoo dhan waxa waaye ma ogta adaa iska leh leela dhahaa ma laakiin saana ka imaan karto hadda habar fiiri habar zahro hadda skillkaas hadda yani hadalkaa dhahaysay maasha allah tabaaraka allah sidaa ula dhaqmaysid wiilkaada ama gabadhaada laba skill oo aad iyo aad u muhiim ahaa isticmaashay mid waxaa la dhahaa decision making yaa ina adiga go-aankaada gaartid ani ase waalid ahaan waxaan kuu sheegayaa optionkan inuu jiro kan inuu jiro inuu kaas jiro laakiin go-aankaas adiga inaa lahaatid waaye taas waxaa bartay inuu independently inuu decision making u samayn karo and that's the problem you know waxaa arkaysaa qof weyn oo yani qof oo adult ah qof baaluq ah weyn oo decision samayn karin go-aan ma gaari karo go-aan dhan ma gaari karo because markuu yaraaba markasta waxaa la tusi jiray inuu qof oo go-aan gaari karin inuu yahay ama lama caawini jiray inuu go-aanka keligiis gaaro tan labaad aad ka caawinta ilmahaada maasha allah tabaaraka allah waxa waaye solving problems yani mushkiladaad jirtay waxa u muujisay waxyaalaha ka imaan kara dhibaatadaasaa tustay markaas it's up to them ayaga waa choicekooda laakiin waa u muujisay haddaa saa samaysid saana dhacaysa haddaa kan samaysid kaasaa dhacaysa waana tan oo hadda labaad oo halkaan noo imaanayso waayo oo ah inaa ilmaha inaa jajgaraynin inaa xukun ku kor dhufan yani inaa xukun saas u kortaagin ya haddaa xukun ku kortaagtid ilmahaas haddii ku imaa ayaku oynayo hooyo wiilkaasaa dilay haddaa alla waryaa nacas baa tahay iskama celin jirtid facaada iskama celin kartid kan wax ma samaysan kartid miskiin baa tahay waa laga fiican yahay haddaad dhahdid xukun baa saartay ilmahaas taas waxay keenaysaa inuu wax kasta oo qalbigiisa ilmahaas ku jiray inuu kaa qarsado because wuxuu nacayaa inaa xukun kor saartid that's why weliba ilmaha waaweyn saaxiibahood wax kasta u sheegan karaan saaxiibka yani relationshipka xiriirka saaxiibka maxaa waaye because wuu dhegaysanayaa first wuu dhegaysanaa xukunna ma saaraayo hadduu dhaho alla maanta waxaan sameeyey hurdadii ilaa waxaan hurday 10 saacaan hurday oh maasha allah that's very cool buu ku leeyahay maasha allah laakiin hadduu waalidkiis intaas u sheego allah lazy baa tahay maxaa la yidhahdaa futurekaada ma ka fakeraysid kama samaynaysid kaas ma samaynaysid waxaas yani xukun baa saaraynaa label ba sharooto oo label aan ku dhejinaynaa oo yani negative label ah ya laakiin saaxiibkii waxaa laga yaabaa markuu u sheego xukun ma saara oo miya maasha allah motivation uu siinayaa waxyaalaha haddii rabaan wax sax ah isku camirayaan allahu aclam haddii kalena wax khalad ay isla camirayaan yani waa saaxiibnimada waa saas because hadalka markuugu badinayo wuu ku dhegaysanayaa arrintaada sida oo jeceshaha oga hadlaysaa adoo ka baqanaynin inuu kugu xanaaqo inuu kugu qeyliyo inuu ku dhaw waa khaldan tahay kan ma aha kaas ma aha saaxiibka ma ku dhahaya saas wuu ku camirayaa ya ama wuu kula jecel waxaa jirtid wuu kula sameynaya asaaba ku dhex jira waxaa samaynaysidba marka happy kugu noqonayaa marka that's why ilmaheena waalidka haddaan rabna ilmaheena inaa trustigooda iyo kalsoonidooda aan dareensiino inay nagu kalsoonaan karaan ya because hadda waa aragnay waalidiin badan waa arkaysaa ilmahoodii yani kalsooni badan kuma laha maanta dhan saasay gacanta u hayaan because kuma kalsooni maanta ilmahaas haddaan dhaafo keligood inay wax samaysan karaan kuma kalsooni ilmahaas keligood haddii magaalo kale aadaan inay wax samaysan maku kalsooni haddii maxaa la yidhahdaa dhaho cuntada for example gabdhaha hadda for example haddaan dhaho maanta gabadhan qadaha kariso waxaa laga yaabaa hooyada haddii yani controlka hadduu badan yahay inay dhahdo maya qadadaas kuma kalsoon inaad si fiican u korin kartid sidaa raba ani uma karin kartid ya same thing ilmahana haddii ilmihii waalidka ku kalsooneen sirtooda way qarsanayaan markii waaweynaadaan taas waa mushkilada ugu weyn wax kastana go-aankoodana weligood go-aanku lama gaarayo waa sida Zahra sheegta hadda mari dhammaysteen
oo decisionkooda soo samaysteen oo waxay rabaan inay sameeyaan meeshay rabaan inay aadaan waxay rabaan inay bartaan go-aanka ugu dambeeya lagu keenayaa take it or leave it baa lagu leeyahay ama qaado I'm just made my choice already I made my decision maxaa ka dhahaysaa taasna waxay ku tusaysaa inaa anakii wax oo weyn inaa soo dhisnay ahayd oo ah yacni trustigaas kalsoonida ah ilmaha anakana inaan ku kalsoonaano ayakana inay nagu kalsoonaadaan especially tan ugu muhiimsan waalidka waa inuu dareensiiyaa kalsoonida ilmaha markay yar yihiin sheekada ka bilaabanaysa saan dhahnay secure attachment ya inay markii kuu baahan yihiin inaad agtooda joogtid markaa ballan ka qaadidna ballanta inaad kasoo bixisid wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula soo maaha ilaahay dhahay marka cahdi haddaad ballan ka qaadid aad dhahdid hooyo waxaan kuu soo gadaya kan iyo kaas ama aabba waxaan kuu soo gadaya kaas iyo kaas ballantaada saa uga soo bixi lahayd aday ku jirtaa ballan haddaa qaadid ballantaas waxaa lagaa rabaa inaa oofisid ya haddii kale ilmahaas mar dambe ma ku tarasgareynayaan because mar kasta la hadashid wax u sheegtidba waxay kule okay that's why ereyga la dhaho insha Allah si khalad loo isticmaali karaa by the way ya insha Allah marmar waxaan dhahnaa insha Allah waa ciyaalka way nacabi exactly ciyaalka way nacabi ha ereygaas insha Allah ama hatta idah ama idaafoyo waa kaas I know inaad sameeyeen exactly marka waa inaad insha Allah hatta aad keentaa fasiraadeedii oo tiraahdaa wixii ilaahay qadaraa la sameynaa ilaahay baa cadiday wixii la sameynaa subhanallah I try my best laakiin wax walba in ilaahay ku xiran yihiin waa ina ogaataa aad taas hataa sii fasirtid waaye laakiin hataa insha Allah dahdid haddana dambi banugu tahabar dambi anaka dambi nugu noqonaysaaba because magaca ilaahay mashiicada ilaahay baa wax u baahneen yani inta dhihi lahayd ma awoodo ama ma hubo ama ma awoodo waxa dhaysa insha Allah taas anakii dambi nugu tahay because mashiicada ilaahay wuu hubaa wax kastaba aayada halkee ka imaatay insha Allah halkee ka imaatay waxay ka imaatay suuratul kahf ya wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika illa an yasha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'iluhu ghadan wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan إلا أن يشاء الله مية ساس عمل I'm not sure to be استغفر الله لكن ساس أمالينا يا هدو قف يقاننا إيه صح بليز يا سورة الكهف واي مركا anyway وحا الولاية يعني وحا لغسو قادة وحا هبتد مركا وحا هبتد إنا السميني سد أقوان كقادة إنا السميني سد مركا سده إن شاء الله لكن وحا هبين مشيئة إلهي كدرين مشيئة إلهي وإنا هدو إلمي وحي نعيان بأريقاس إن شاء الله أو أري وناكسن أو يعني وحي كمتهاي بيلس أوف إيماني كمتهاي يا قدرت إلهي إنو مشيئة إلهي قدرت إلهي كمتهاي تاس وحا قلينا يسا إلمهاس عقدد أو إني مشيئة إلهي إني I'm not sure هدي إن شاء الله هدي شيء كده صوغشو that means no I'm not sure تاس دنبي وين حقيقة إيمان دنبي قاس يا وزر كاس يا لي دنبي قاس anaka waalidkaala because the way anaka u sameynay marka haddaa ballan ka qaadno inaa ballanta awfin karno marka kale tan afaraad aan kusoo xirayna insha Allah waxaa ka mid ah inay ilmaha yani boundaries inuu jiro yani I trust you waa kugu kalsoonahay inaa guriga saaxiibada aadi kartid inaa waqtigaa soo noqon kartid laakiin anaka hanoo dhexeeyo xuduud hanoo dhexeyso ya inaa waqtigaas imaanaysid إنا محل يراهدا هدا أركتد إني وح خلط لسمينا جوريجاس بارتيجاس حفلة لسمينا هدا أركتد وح خلط إنا يسوي عدد إنا يعني إنا شروط كحرتد يا إنا ده أوكي I want to show إنه الماس إنا كوكل صانع وحير ما هالسميان no وحدود إني لهذا تراستيجاس إنه حدود لهذا I trust you لكن وحدود إنا لهاتين because ilmaha waa muhiim bay u tahay inay yani boundariesna inuu jiro inuu xuduudna inay jirto waxyaalo ay sameyn karaan inay fahansan yihiin waxyaalaha ay sameyn karinna inay fahansan yihiin ayadan u kala caddahay yani wixii sameyn karaan iyo wixii sameyn karin iyo inuu waalidka xurriyad siiyo ya xurriyad ina la siiyo oo ilmahaas inay ayaka waxooda kaligood sameysan karaan anoo kalsoonidaas ku kalsoonahay and it's very important waxaa lagu leeyahay attachmentka ilmaha aad iyo aad wuxuu u saameysaa markii weynaadaan
ya marka hadda waxaan tusayaa waxyaalo oo dadka waaweyn ay qabaan waxyaalo waxa jira dadka waaweyn ay qabaan oo waxyaalahaasna waxay ku saleysan tahay ee ka imaanaysa because secure attachment badan ma helin markii yaraayeen hadda halkan ka fiirino secure marka secure attachments kaas waxa lagu leeyahay ilmaha oo badanaa secure attachment ka haysta aad wixii u saameysaa markii weynaadaan markii adults noqdaan dad waaweyn markii noqdaan waxa lagu leeyahay ilmaha oo markasta secure attachment leh taasi markii weynaadaan because waalid ay ku kalsoon yihiin markasta la joogaan moogtahay waalid ay ku kalsoon yihiin la joogaan taas waxay ka caawinaysaa hadhow markii qoys noqdaan oo wiilkaas weyn markuu weynaado oo noqdo oday oo guri yani oo maxaa la dhahaa ii sheeg oo nin oo zawj markuu noqdo iyo gabadhana markii hooyo noqoto oo guri furato ayadana waxay ka caawinaysaa inay trust oo relationshipkii oo yani labada xaaskii iyo yani zawji zawjadii trust ka dhaxeynaya trustigaasna haddii qof ka mid ah markuu yaraa oo secure attachment hadduu yani ay jirtay secure attachment especially markuu dhasho ilaa 3 sano qofkaas markuu hadduu secure attachment hadduu haysanin markuu weynaado oo baaluq noqdo oo qof weyn noqdo wuxuu haysanayaa issues with security qof oo wuxuu noqonayaa trustigiisa aad uma fiicna yani they cannot trust it so much taasna waxay saameysaa hadhow nolosha oo ibni aadankaas oo lahaanayo tan labaad haddii markaste oo ilmaha oo ooyintooda oo loo fiirsado oo la qabanin oo la tusin kalgaceel taas waxay keenaysaa markuu ilmahaas weynaado ilmo oo ka hadli kara dareenkooda iyo emotionskooda ma ahaanayaan ma ka hadli karaan and the reason uga hadli karaan because markii ay yaraayeen lagama caawinin inay emotionkooda regulation u sameeyaan yani regulation of emotions markii yaraayeen lagama caawinin inay haddii ooyaan inuu waalidkii iyo qofkii oo caregiverka u ahaa oo caawinayay inuu la joogo inuu tamaniino u sameeyo inuu يعني دتشيو قفكاس أو دتشينايا آموس معنا مالها is okay يعني reassurance على لها تأكيد reassurance أما يعني قفكاس واحد درينسينيسا إني emotional إنه secure هاي يا يعني عاطفتي أو ينت أهد أو ينت كإيمانيس أمان لأنت أما أو دريما المهس إنه أمان هي سنين أمان كي أتصيصا يا marka taas wixii keenaysa qofkaas markuu weynaado oo relationship iyo calaaqad oo qof yani qof weyn markuu noqdo oo lamaano noqdo taas wixii keenaysa inuu good qofka kale inuu ku kalsoonaan karo because kalsoonidii markii yaraa baa laga dabciyay yani kalsoonidiisa waxa laga caawin markuu yaraa hadhow markuu qofkaas lamaano noqdo kalsoonida wuu ku kalsoonaan karaa qofka kale laakiin on the other hand hadduu markii ilmaha secure attachment markii ay yaraayeen oo baby ahaayeen especially from 0 to 3 years markii maalinta ugu horeysa ilaa 3 sano haddii secure attachment haddii haysanin hadhow qofkaas lamaanahaas markuu weynaado markasta wuxuu noqon ama qofkaas markuu weynaado relationship oo marriage relationship markuu galo qof oo markasta u baahan inay yani wuxuu u baahan yahay markasta yani reassurance u baahan yahay secure ma ahaanayo badana xitaa waxyaalaha waxa lagu leeyahay oo xitaa keeni kara labada qoyska ama hooy yani zawjka iyo zawjada inay kala maseeraan ya maseerka waxa lagu leeyahay maseerka waa symptom of underneath broken trust ya yani waxa waa sida hargabka qofka inuu hargab qabo see lagu gartaa يعني عافاكم الله يعني سنكيسا بلا منايا إنه وحكة صبحان دوفي وحاسيو حمضا كعيسا أساقودن وكقرانيسا إنه هرقب قوة سماها same thing قفك هدائري قف أو يعني مسار يجالسي حتى معها خصب معها لمعنى حتى الماء الماء لفتركو ذاك مسيرا يا هدائري تدعونو قال إنه مسير كيس بدني هاي أو مركز هويو you give him this you didn't give me Abo, you give him that, you didn't give me. Or markas tabi issues or jealousy issues in sheekadii satahadaad dareentid, that means there's a secure attachment problem. meeshaas ka imaanayo.
yeah there's a secure attachment problem halkaas ka imaan oo ku saabsanna waxay ka imaatay waalidkiya wuxuu kobcinin trustigii kalsoonidii iyo ammaanka ina ilmahaada siisid aad dhahdid hooyo waa kula jooga ama aabba waa kula jooga igu kalsoonaaw taas waxay keenaysaa inuu dadka ku kalsoonaanin ama inuu rabo the other way inuu rabo mar kastaba inuu qofu saas ugu dhagaaya maanto dhan in la joogu rabaa hadhow xitaa markuu weynaado xitaa qofkaas waa saas maanto dhan inuu dad la joogaan rabaa maanto dhan inuu attachment inuu qof kaligiis ma joogi karaba wax kasta in maanta la sameeyo wuxuu jecel maanta dhan inuu qof ku xirnaado ama yani qof inuu maanta dhan ku tiirsanaado because markuu yaraa wuxuu helin secure attachment and that's very important waalid kasta oo ilmo yar leh waxa ilmahaada ka caawintaa ina attachment kooda ina hagaajisid oo yani xiriirkaas oo ilmaha iyo waalidka aad iyo aad saameyn weyn wax ugu leedahay markii ay weynaadaan iyo what type of relationship ay lahaan doonaan markii weynaadaan oo lamaano noqdaan ama markii maxaa la dhahaa ay sheeg ay sii weynaadaan marka insha Allah intaas ku soo xireynaa biidnillahi tacaala waalidiinta oo zoomka insha Allah su'aalihiina bilaabaysiin waalidiinta oo Instagramkana insha Allah waa save gareynaya hadda save gareyn karo su'aalihiina halkaas igu soo diraysiin DM-ka direct message ahaana igu soo diraysiin marka insha Allah hadan waxa bilaabeynaa wixii su'aal qabo oo zoom session-ka insha Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh